بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. walaalyaal waxaynu la hadlaynaa walaalkiin nadiif jaamac. waxaana doonayaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan horta salaan aad u baahan aad u weyn inaan u fidiyo dhammaan dadweynaha reer Gaarisa iyo dhammaan inta i garanayso oo muuqaalkayga arkayso amaba maqlaysaba. horta waxaan doonayaa awalan inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan salaamo oo ilaahayna aan barino in cibaadada aan soo marnay bishii Ramadaan ee barakada badneed wixii aan gudanay ee maaragtay soom ahaa ama salaad ahaa ama zaka ahaa ama sadaqa ahaa in waqti ilaahay naga aqbalo insha Allah tacaala. intaa kasta kow waxaan u soo fadhiista maanta inaan waxyaalaan ka hadlo kilibya soo socdeen maanta ilaa iyo wiigi aan soo dhaafnay oona ka soo baxeen ninka hadda magaalada Gaarisa maanta ama county Gaarisa maanta governor ka ah Mr. Ali Bino Qorane oo waxoogaa run ahaantii aan isdhahay lagama aamusi karo in laga hadlo oo wax laga dhaho ayaa muhiim. saad ogsoontihiin adaatiin reer Gaarisa ama intii garanaysaba anuga ma ihi dadka oo run ahaantii u jawaabo madaxda kale ee hadlaan. inta badan waxaan jecel yahay inaan ka aamuso inay maaragtay shacabka ayaga ay maaragtay waxay ka dhahayeen ka dhahaan. laakiin hadda maanta meesha uu walaalkeen Cali sii marahayo waa meel khatar weeyaan. مثلا haddii aan ka soo qaado kilibka hadda maanta aan soo wareegayo ama kilibyaha maanta aan arkayay oo ahayd kilibya intuu meel iskugu yeeray shaqaalaha countiga qaar ka mid ah oo si oo run ahaantii aan quruxsanayn oo la hadla si aad isdhihi karta diinna ma qabto, tolnimana ma qabto, walaalnimana ma qabto, mas-uulnimana ma qabto. si oo argagixisnimo ay ku jirto oo run ahaantii aad isdhahayso dadkan uu ninkan sida oo la hadlaayo miyaysan xaq lahayn bal miyaysan ilaahaygii abuuray aysan qabin. markuu nin mas-uul ah intuu maaragtay shaqaale hor istaago uu leeyahay bisha Sebtembar meesha aad qutloonkiisa ka heli doontiin, meesha aad ilmihiina ay maaragtay waxa ka cuni doonaan ayaa loo joogaa ugu hanjabaayo. run ahaantii waa wax la yaab leh. war ninkan walaalka waxaan is dhahay miyuusan haba yaraate ee inta ka hor uusan kor marin, hadduusan kor marinna aan loo tafsiirin aayadda ilaahay uu qur-aanka subxana watacaala ku leeyahay wamaa min daabatin ilaa cala allaahi risquha. yani ilaahay ardadan korkeeda maadku muusan keenin wax ma aragtay wa ilaa ama xayawaan ama bani aadam wuxuu raba ha ahaado wax alla wixii ma aragtay wax cuna ama wax ma aragtay irsaaqda ilaahay wuxuu leeyahay risqigeeda ayada asagu korkeeda ahaatay. marka horta meeshan cali waxaan u sheegayaa dadkan walaalaha ah masaakiinta ah ee shaqaalaha ee horta sida uu hanjabaya war horta bal ha ogaado inay yihiin dad ilaahaygoodii qabo. shalayna way noolaayeen, maantana way nool yihiin, barina way noolaanayeen. weli ma soo maray taariikhda run ahaantii in risqa iyo ma aragtay intay wax ka cuni doontiin sidaa iskugu hanjabo. wax soo martay ma aha waxaan naqaano, wax soo martay ma aha waxaan naqaanona ma aha. midda labaad ninkan walaalkeen ah Cali weli waxaan taariikhda soo marin in la weaponize gareeyo oo uu noqdo payrollkii ama muxuu ahaa mishaarkii la qaadanayay hub dadka lagu adeegaxiyo, hub shaqaalaha ma aragtay lagaga arguto, hub shaqaalaha lagu hanjab inuu noqdo. wax lagu arka ma jiro meelna ama waddankan ahaado ama meel kale ahaado. shaqaalaha waa dad xor ah. ma aha in la dhahaa ninkii shaqaale ahaa oo meel kale lagu arko ama raali kale lagu arko ama muxuu ahaa cid kale support u jeediyo waa payrollka laga bixinayaa
waxaas wax oo maaragtay la aqaanana ma aha meel ay ka jirta waddankanna 47 counties-ka meel waxa aan ku maqnahayna ma jirto aan ka ahayn Garissa County waa wax cali qoran asaga uu jarkiis kala soo baxay oo run ahaantii isweydiisa weeyaan adduunka isweydiis ku leedahay aakhirna isweydiis ku leedahay shaqaalaha waa dad xor ah waxaan u sheegayaa Mr. Cali Qorne 2017 aniga asaga oo socdo ayaa iska dhaaf shaqaale yar ah wasiiradihii aan ila socdo qaar ay wadeen mishaarna kama joojinin umana goodinin shaqana kama bixin marka run ahaantii aniga waxaan dhihi lahaa waxyaabahaas cali gabanaga uu ku dhaqanayo waa wax diintana ka baxsan islaamnimadana ka baxsan tolnimada ka baxsan mas-uulinimana ma aha wax ka soo reebto dadkan masaakiinta ah ee sida loo gelaayo oo cid alla ciddii madaxeeda kor u soo qaadaba in yar ama ra'yiga ka soo baxa oo maarata asiiskiisa ka duwan ama meel kale ka hadlo in sidaas loo galo waa arrin run ahaantii completely aan fiicneen oo meel ay ku sugan tahay aan jirin waa wax lala yaabo weeyaan anigu waxaan doonayaa inaan u shaqeeyo shaqaalaha countiga hadduu ilaahay idinka dowladdeena noo soo celiyo horta meeshan cid la dulminaaya ma jirto Sheikh Garissa arrinta ha ogaadaan aniguna had kuley ninkas taariikh buu leeyahay nin hadda maanta lagu bartay inuu cid dulmiyo maba ihiba ilaahayna inaan dulum geysto waanu arkaayo oo soo jeeda horta ma dhici karto maxaa yeelay waxaan xukumayaa ama la xakameynayaa diin iyo ilaahay ka cabsi iyo aakhira ka cabsi marka anigu waxaan shaqaalaha u sheegaya waa countiga horta meesha cidda dulminaya ma jirto cid kasta sidaytaan oo la tacaamulaynaa cid kasta meesha ay ku habboontaha la geenayaa cid kasta waxay qaban kartaa la fiirini oo shaqo ah countiga wuxuu u baahan yahay maanta ma aha shaqaalo maaragtay la kala fiijiyo oo la kala eriyo oo mishaar laga joojiye countiga wuxuu u baahan yahay shaqaalihii la qoray inay shaqeeyaan oo shaqo la muujiyo oo ummaddan rayidka ah ee masaakiinta ah wax loo qabto ma aha in shaqaalihii ay noqdaan run ahaantii shay xagga loo sii wado lasoo wado oo sidanaba maaragtay loola tacaamulayo marka anigu horta haddii aan arrinta wax ka dhahayo waxaan ka leeyahay shaqaalaha argagixisnimadooda inagu wado agteena ma taalo mana imanayso si walaaltinimo ah si cadaalo ah si diin ah si countiga wax loo qabto si wax qabad oo countiga inayto baaba'day wax loogu qabto ayaan maarta ka wada shaqayn doonaa horta sida ogaada arrinka kale run ahaantii aan doonayo inaan wax ka dhaho oo ayadana maanta aan ku arkay kilib oo kilibyada ka mid ahaa kilibyada way badnaayeen sida la ii sheegay laakiin ma wada fiirinin waa kilib oo Cali Qorne uu leeyahay shaqaalaha uu ku boorinayo uu leeyahay gala hotelka ninka walaalka deeqow barrow oo uu leeyahay hotelkiisa daga oo ha ka bixina ilaa deeqow uu iga haro oo tartanka uu ka haro war waxaas caliyow wax kale ma aha caqlina ma aha wax kuna lagu helina ma aha deeqow waa nin walaal leh waa nin soo hawooday waa nin countiga u dhashay waa nin countiga xaq u leh inuu u istaago alla kursiga u arko maarata inuu munaasib u yahay oo maaragtay u tartami karo marka in yacni maanta shaqaalihii lagu maaragtay lagu sameeyo intimidation oo deeqa u gala oo deeqa hotelkiisa dega oo ha ka bixin ilaa uu iga haro maxaa dhibkaa maxaa intaa leega maxaa keenaya waxaas ma aha wax run ahaantii tala aan naqaano ma aha wax reegaarsana maaragtay ay soo aqoon jireen ma aha waxay ila tahay waa wax laga yaabo oo wax loola yaabo weeyaan oo run ahaantii u baahan in laga hadlaba maxay tahay dhaqanka noocan oo kale intuu nooga imaaday in la isweydiiyo u baahan yahay midda kale oo aan rab inaan ayadana aan waxay ka taabto inaan ku dheeraado mid wanaan sheekada ayada ah cali wiigga hore ayaa waxaan anoo gaaris jooga ayaa waxaan maqlaayay rally ayuu qabay oo magaalada ku qabay war waxaan islahaa anigu shaksiya horta waa yaabanaa waxaan lahaa ilaa ninka mas-uulka ah ee kambaynka ku jiro marka uu raalliga galaayo waa inuu soo diyaariyey oo ummaddiisa wax uu ku dhahaa uu leeyahay ama uu soo diyaarsado waa inuu dhihi karo aniga ummaddan reer Gaariso waxaan u imaaday maanta inaad i dooratiin
isoo celisiin waxaasaan qabtay waxaasaan hagaajiyo waxaasaan fuliyo intaas horumar development keena ma aha run ahaantii cali waa imaaday anigu waxaan lahaa wadinkan muxuu dhihi doonaa 5 sano waaba dhamaatayba waa noo hore waa 2 bilood taariikhdiisana waa iska cadda naa markuu wax kale oo soo diyaarsado uu garan waayey ayuu cali wuxuu yidhi deynta nadiif ka tagaan bixin hayna waayahay horta deen la bixiyo oo lagala wareego dowlad kale horta ceeb maaha wax cusubna ma aha 47 counties-ka maarata governor kasta oo imaaday ninkii ka horreeyay deen buu kala wareegay ama tu asaga uu sii lahaa buu sii hagaajinaya Uhuru Kenyatta hadda deymaha uu bixinayo waa kuwii Mwai Kibaki iyo ka shishe weeyaan waxaas wax ceeb maaha laga hadla deen la bixiyo laakiin adiga waxaad ku darsatay wax aan jirin oo turufaad ah oo been deyntan aad dadka u leedahay 4 bilyan oo ka tegay hadiyo waxaan ku sheegayaa annaga waan ogsoontahay annaga waan ogsoonna lacagtii anaga aan ka tagnay intay ahayd qiyaaskay ahayd waad ogsoontahay waxaad ogsoontahay inay ahayd 1.8 billion shillings way qoran tahay documentskii baa la hayaa oo aad saxday adiga iyo maaragtay nimankii ku shaqaynaya marka horta waxaa la dhahaa Soomaalida waxaa ka markii waagaan yareen been sheeg oo been run u eg sheeg horta waxa aad ku hadlayso wax maaragtay meel ku geenaya ma aha Garistan hadda maanta dad hadda maanta run ahaanta la sii karo ama intii la hor istaago been iskaga qudi karo oo aad isleedahay beentaas lagu soo celinayo ama lagu daro horta ma aha dadka waa la cilbaa cali maanta hataa ilmaha iyo carruurta yarka abaa maaragtay Facebook iyo Messenger ku jiraan oo details information wax kasta haysta horta taas ogow midda kale waxaa Soomaalida ka maqli jiray wareerna ceeb looma dhinto ceeb looma dhinto cali waxaan soo xasuusin rabaa kiwaanjada uu taagan yahay Garissa Primary School agteeda waxaa ay Garissa General Hospital oo aan ka dheereen oo maamulooyinka ku jiraan ay la yihiin suufkii maaragtay dhiiga lagaga tiri lahaa oo ay la yihiin duroobka laga dhalin lahaa maba ahaba inuu hadlaba cali qorre maanta ninka hadda maanta ka hadli lahaa horumar iyo raali iyo dadba hor istaagi maba ahaanba harabta waxaan ka maqli jiray in lam tastaxyi fasnac maa shiita haddaadan xishoonaynin waxaad rabta iskaga hadal waxaad rabta iska dheh hadda cali qorre maanta waa nin iska buraaqanahay يعني 5 سنة dhamaatay wuu ogsoon yahay in countigan wax laga qabta aan jirin oo daawada yarta ilaa ay fan oo gal la'ay ninka hadda maanta hadda lahaa oo darasta hooda horstaaga ma baahaba laakiin maxaa yeelay hadii la dhahay haddaan xishoonaynin waxaad iskaga hadal horta halkaasoo cali qorna sii marahaya laakiin anigu waxaan u sheegayaa caliyow wax cajiib oo lala yaabo ayaa run ahaantii aad la imaatay oo qof mas'uul ah madaxa lagu aqaani haddaan ku laabto arrinta hadda deynta aad wax ka sheegtay oo aniga aad inaad ugu cambarayso isku dayahayso waxaa tahay governaga keli Kenya countigiisa laga bilaabo wax la dhaho keena 40% ama 50% lacagta waa nasiin waa taariikh ku qoran taariikhdana ilaa isqortaa mana baaba'ayso way yaalaysa dad waxaan garanaynaa حتى أنت 40% إلى شيء لا يقعد أيضا أنا لو سؤالين لين تورن على سيري والله ما كم قليل وتاريخ أنت عجيبة وعليك أن كنيجا كوجو أنوين يحكوا شقيا أو حكوا كل جري يوم يجاز كل جري بنت كل جري أنا أنت هذا هذا كوحيد شيء بالريو وعيب ما نحفر ناو هذا مسؤولين وبعدين أبصمي المسؤولين تجاريسة الصوماليات أنا هذا عيب بعد أحفظ لنا أو هذا جلسة أو مجا وتاريخ أن وين نصومرين أنت ما أنت أحفظ لنا إلا ده أمد حق كان مقام بعد الوسيل كان 40% أما 50% أو أدوكسون تهاي أو أدغرن تهاي أو ما أرتي أي كوك أنت هو عجيب كل أدون ما أرتي وحنا جنّي وما أرتي ووركيس آخرنا وحساب مركا هذا تاس واستباب كله يعني لو هارب أنا كوسو هذا كوسو جبجبيو أو حالي عن كلهم ورشقالة الوسمة intimidation وما أرتي أرد حسب الوسمة والله ما أرتي نيكي استقايد شقالة قتري
oo ninkii maartay idooran waayo maartay wakaasi maartay qutilyoonka baa laga goosani qutilyoonka annaga gacanta kuma hayno ilaahayga caza wajallaha ee ummadda abuuray ayaa gacanta ku hayaa annaga waxaan gacan ku hayna ma jiro cali dadka kuguma dooranayiin nagumana dooranayiin inaan ku samayn intimidation shaqaala in been iyo turufaat waxba aan ka jirin dadka loo hor istaagana iskuma dooranayo in muxuu ahaa waxqabad la-aan baa la doorana meesha ma dhacayso meeshan arrinta wax iska dhigir weeyaan meeshan nin kasta taarikh buu leeyahay hadda tartanka gabarnimada maanta Garissa County ninkuu ilaahay gaarsiiyey 4 qof baa ku dhahay waa aniga iyo asaga Cali Qorane iyo walaalkay nimanka labada nin ee walaalaha oo Kalusha iyo meja deeqo afarteenaas laba aniga Cali already meesha waan soo marnaba ana horaan u soo maray asagana maanta u dhamaynaya waxaan ahay Soomaalida waxay tiraahdaa ama aqoon dooro ama ugub dooro aniga asaga hadda maanta maatay ugu banay horaan loo soo bartay nin kastana taariikh buu leeyahay asagana Cali taariikh buu leeyahay oo hadda maanta 5 sano lagu bartay anigu taariikh baan lagu bartay labada nin walaalahana waa niman cusub marka horta dadka dadweynaha reer Garissa waxay ugu kala dooranayeen wax nin kasta wuxuu yahay taariikhdiisa marka Cali oo rekoorkaada uma kooriyaala ama aakhira ahaata ama adduunka ahaata laakiin dadka ha laga daayo cadaadiska aad baan oga nahay run ahaantii waana ka xumaaday in maanta klibka aan arko oo hanjabaadka intaas la eg loo joodiyo ummad tol walaalo masaakiin ah oo ku shaqeeyaan oo county ku shaqeeyaan aad baan uga xumaaday marka xaq bay leeyihiin dadka ha laga daayo cadaadiska payrollka iyo shaqo noqonin ma artay meel la isku muxuu ahaa dadka loogu hanjabo oo dadka maartay lagu mijaxaabiyuusan noqonin meesha tan waxaan doonaynaa county wanaagsan county sharaf leh annagaa meesha ilaahay mas-uul nooga dhigay dad sharaf leh oo countigooda ee sharaf u yeelayo inaan noqono oo taariikh nadeena u baahana maaha inaan run ahaanti dadkii aan dulmi iyo waxaan la galayn oga tegin Garissa waxaan leeyahay doorashadii hadda ilaahay ninkuu cumri caafimaad siiyo waxaan ku waa laba bilood hala fiirsado nin kastana wuxuu yahay ku doorta nin kastoo taariikhdiisa iyo waxqabadkiisa Soomaalida waxaa ka maqli jiray yaama waxay goosha gadaasheeda laga daya nin kasta wuu isaqaanaa nin kasta maarta hala sigsigeeyo taariikhda oo nin kasta leeyahay iyo waxqabadka oo nin kasta maarta la imaaday hala isku doorto oo muxuu ahaa aan countigan sharafteedii iyo wanaaggan aan ku soo celino هذا وبالله التوفيق وجزاكم الله خير شكرا جزيلا